waxaan rabaa hal kelimo kaliya inaan ku soo gunaanado. waxaan ka mid ahaa aniga xildhibaanadii madaxweynaha hadda xilka haya ee mooshinka laga geeyay xildhibaanadii wax ka doortaan ka mid ahaa. kadib markii hadallo macaan iyo niyad fiican aan ku aragnay aan ka dareennay maana ogeyn wuxuu samayn doono, laakiin 2 sano markuu shaqeeyey keligiisuna yimid, dalkana ma joogi jirin, boorsuu iska watay. markii uu yimid oo la doortay wixii uu sheegtay oo dhan oo uu yiri waa qabanayaa, hal shay kama qaban. wixii dastuurku siinayay inuu ixtiraamo oo ahaa dastuurka dalkan yaalla ee dadka Soomaaliyeed ay ku kala dambeeyaan ee ay ku heshiyeenna qodobadiisii min dhinac ilaa dhinac kale uga dhex baxay ku tumasho. halkaas markay marayso lama necba madaxweynaha, weligiin ha necbaanina, waa u turaynaa annaga. waxaan leenahay madaxweyne ma sii wadi kartid xilkan, waa kugu culus yahay. marka waxaa jooga hogaamiyaal kale oo sii wadi kara oo wixii 2 sano naga halaabayna noo toosinaya, ha nuugu darin 2 sano kale. madaxweyne naga joog, intaas nooga ekee baan niraana, wax kale oo aan nirimane. waxaana ku matalaynay dadkii dhintay ee halkan kilomitir 5 oo daris nala ah 1000 qofood ka badan ay ku dhimatay. waxaan ku matalaynay kuwa habeen kasta la dilo. waxaan ku matalaynay kuwa ganacsatada ee inta loogu soo galo baqaaradooda la dilayo. waxaan ku matalaynay maamul goboleedyada la colaadiyay ee weerarka iyo kala qaybinta lagu sameeyay. waxaan ku matalaynay Somaliland oo la yiri deeqaha laga jiro. waxaan ku matalaynay cid kastoo Soomaaliyeed oo ku dhiban xukunka madaxweyne Farmaajo hoostiis, qof kastoo ku dhiban ayaan ku matalaynay mooshinkii iyo soo jeedintii ahayd madaxweyne xilka ma sii wadi kartid, waa kaaga turaynaa, laguma necba. howlo badan oo adiga laftaada ku yaallaa jiro oo aad wadan jirtay. madaxweyne halkaan noo dhig, waa sii wadanaynaa, dad baa sii wadaya, adigu iska bax, iska laabo. intaas ahayd wixii shalaan geynay, wax kale ma ahayn. arrin keliya rabaa inaan ku daro. waagii hore qofkii dalka lagu cabiriyo xaggee buu aadi jiray? wuxuu aadi jiray waddamada dariska Itoobiya. hadda madaxweynihii baa Itoobiya aaday. madaxweynihii ayaa Itoobiya naga aaday, inta dalkiisii ka carooday, qancin waayey, wax u sheegi waayey, ayuu yiri ciidamada Eritrea iyo Itoobiya dalka ii qabanaya. heshiisyo noocaas dalkaana ciidan haddii lagu qabsan karo 40,000 baa UNISOM 92 iyo 93 timid. 50,000 ku dhowaad baa Itoobiyaan keeneen halkan ayuu kaarayaashoodii wata. kuwa ka horeeyo ciidamada way jiraan, laakiin Soomaali bay ahaayeen. ciidamo ajnabiya ninkii dadkiisa u soo wata ama kuwa dalkiisa yiraahda dadka ii caburiya, ninkaas mugdi buu gudayaa. waa nin khabarmooga. wuxuu u baahan yahay in far waaweyn wax loogu qoro oo la yiraahdo dadna lama caburin karo, qorina waxba tari maye. waxaad u soo baxdaa, waxa isku difaacdaa madaxweynuhu, waa inuu isku difaacaa sidii akhyaarta hadda iga horreysay yiraahdeen xildhibaanadaha, waa inuu isku difaacaa sharciga hortiisa.